runtii in badan bay yacyocoodin noo ahaayeen wax fara badani oo tusaale ahaan maanta dee iskuulada halka aynu wada joogno wasaaraddu waxay go'aansatay inay labuun ahaato wax bareefada oo ama koox ama cid gaar ama qof gaar leeyahay oo lagu og yahay oo dhibaatadeeda iyo faa'iidadeedaba uu isagu leeyahay dawladuna kula xisaabtanto iyo waxay dadku leeyihiin oo dawladdu mas'uul ka tahay labadaa wixii ka dhaxeeya dad waxba kaba jiraan qolooyinka maqanna waxaanu dareemanaa inay labadaa wax u dhaxeeya raadinayaan taasina ma soconayso waa ku hambalyeynaa runtii wasaaradda waxbarashada go'aanka ay qaadatay hal iskuul baa anaga halkan gobolka jiray oo markii siyaasadiina aanu maamul ahaan isla eegnay dee labadaa dhinacuun hal la raacaa la yidhi odayaal iyo culimo runtii ixtiraam iyo sharaf badan mudan baa iskuulka ku soo tabcay oo iyagoo dadkooga u damqanaya iyagu si voluntary muddo u soo waday iskuulka secondary ee Shaafici runtii tacab badan bay soo galiyeen meel wanaagsan oo marayay nidaamkan laakiin dee markuu yimid waa in labadii mid uu noqdo iyaguna marka horeba dadkii u sameeyeen marka kale dadka u sameeyeen dee inuu mas'uuliyadii dawladdu u soo galo ayay noqotay runtii